dhegaystayaal haddii intay da'du u run sheegtay uu awgeed guulada jucufagabay iyo luuqdiisba kaga haray markuu aad u saboolay oo aad u tabas dhigay hadduu gabayltaagna faraha kala baxay waxaa iyaguna jiray maansayahano sababa kuwaas ka duwan dartood isaga dhaafay qaar iyaga oo dhallin yar hantina ka buuxa curinteeda ka xidhiir furtay taasna waxaa tusaale fiican u noqon kara gabyaagii reergadoodka ahaa ee afartanadii qarnigii aynu soo dhaafnay xiddiga suugaantiisu uu dhab u iftiimay ninka aan u jeedaa waa faarax xuseen sharmaalke gabyaagii isaga oo da'yar calanka maansada hantiyey soddongu isaga oo aan wax quman dhaafinna laqmaday iyada oo murtidii alla ku uumay aysan ka soo wada bixine inteedii ugu cudoonayd ay ku harsanayd lagana aasay si kastaba ha ahaatee wuxuu faarax fagaarayaasha kolba gabay cusub ka mariyaba tiixo xifaalo ama xafiiltan ah wuxuu degaanka iyo dariisyada ku jalbeebiyaba waagii dambe ayaa la tegay markii intii muddo ah wax ka soo baxa la isu warin waayey gu iyo hodhodhow hadduu sidaas ahaa ayaa waxaa waraysi ugu soo kacay qaar ka mid ah dadkii maansadiisa jeclaa gaar ahaan dhallinyaradii ay isku filka ahaayeen ee dareensanaa in xaggiisa sad weyni kaga maqan yahay aamuskiisa kolkay uga cawdeenna wuxuu u sheegay wax aanay filayn wuxuu kaga naxsaday in dhoweydba tirintii maansada inuusan ku hawshoon welibana inaanu dib dambe ugu noqon ay tala kaga ibabeeshay maxaa kugu dhacay maxaad qoonsatay maxaa kuugu wacan ma waxa aad ka cabsataa jira ma wadaad baa kaa wacdiyey faarax xuseen degdeg uma uu jawaabine hadduu dabin hoos u fooyaray ayuu galo kafuul buu yiqiine isla meeshii ay fadhiyeen gabay dheer dhallinyaradii ugu warrama wuxuu u kala dhigdhigay sababihii ugu wacnaa ee daboolka adag uu afka isaga saaray adabtii uu gabaygaas ugu furfurtayna waxay ahayd niman yahow dambaab lama hadlee daa'imaan ahaye ma da'weyni waayeelna waa laydaniyayaaye casho nool wax noo daalaca baad ila dul joogtaane haddaad maanse iga dooxiseen inaan idiin deexdo 16 haloo wada dantayah yaan isaga daayi aan haddaba maanta idin maqashiiyo tudciyo aan ka soo dhambashay gabaygii saddexdayda u badnaa ee faarax kaasoo sidaan soo sheegay uu ku faahfaahiyey waxyaalihii ku hambooriyey tirinta maansada inuu ka shiilaad baxo waxaa ka mid ahaa degaanka gadood oo isagu uu ku noolaa darajada iyo meekhaanka uu leeyahay inaan laga aqoon inuu ka baqaayo isla gobolkaas dadka dega ishooda maxaa yeelay bunka ayay dubtaan siday la tahayna iyaga oo kale ciddii ay isugu tuftaa ifka kuma raagto intan iyo markuu gabanka ahaa murtidii badnayd ee uu tirin jiray aan laga hoos qaadin iyo hal abuurka cid walba maansadiisa ku maaga inay u dhowdahay mar ay noqotaba inuu halis afka uga dhaco sida shimbirka aan dhulka ku hakane goor noolba hawada heehaabaya wuxuu yidhi dalkan gedo ninkii duunyaday door u bixiyaane ninkii diin leh iyo caaqil waa lagu duleeyaaye inaan darajaday laga aqoon yaan isaga daayi bunka niman dubtaa waa sidii duul karaama lahe adduunkuma digeeyaan waxay bila ku daahaanee in cayuuni shaygeeda dili yaan isaga daayi daliil gabay ah diin iyo xikmado daacad iyo waano daraad iyo middaan shalay lahaa duug hadday noqotay inaan dhayaba hadal deeq ahayn yaan isaga daayi shimbir duulis badan oo dhulkii degi aqoon waayey marun buu libaax labadii daan dalaq yidhaahdaaye inay edebushay doora tahay yaan isaga daayi gabyaaga oo sii wada sababihii uu maansada isaga daayay ayaa dhallinyaradii u timid u sheegay cadaabta aakhiro cabsi uu ka qaba awgeed inuusan doonayn in dadka uu isku soofeeyo inkasta uu awoodi karo beelo idil intuu isku diro in dabadeed ay bidka iska aslaan
waxaa kaloo tirinta gabayga ku diray garaadkiisuba ha koobnaadee sida gabyaaga da'da weyn ay bulshadu u maamuusto fadhigana uga kacdo halka kan sidiisa oo kale u dhallin yari aanu inaba wax tixgelin ah ku qabin sideeda bannaanna in hadda uu maansada faraha ka qaadaa wayba u bilan tahay maxaa yeelay dhammaan tolalka soomaaliyeed dhexdooda waa ninuu magaciisu shaac ku noqday sidaa darteedna cid gabay ku maagi karaysaa aanay jirin tuduc kale oo gabayga ka mida ayuu ku leeyahay haddii maansayahanadii hore wixii suuragal u ahaa aanay maanta ii ahayn oo intaan cod duule raaco hadhow markii geel la soo qaado aanan ka saami qaadanayn dabadeedna inta la igu fasaxo hashii gabay u dhex maroo kala soo bax aan la igu odhanayn gabaygu maxallad buu leeyahay maxaan tirintiisa ugu xilanaya wuxuu yidhi diradiriyo waa geli karaa dulan islaameedee duda nabada waa marin karaa dab iyo qiiqiisa in namiim cadaab dalaq la siin yaan isaga daay haddaan doona waa odhan karaa diigashiyo faane anoon diririn baan ridan karaa daqarro waaweyne dadka eebbahay caabudkiis yaan isaga daay garku deebnimuu yahay hadduu doqon ku weynaado koluu waalidnimadii dugsado waa la darajayna inaan wiil duqnimo loo cisayn yaan isaga daayey daarood dhexdiisiiyo hawiye dil iyo soomaali doqon iyo nimaan kala ahayn laba dad mooyaane inaan laygu daandaansanayn yaan isaga daayey duulaan haddii aanan galayn dooyo laba qiiq leh aanan libin ku diigdiiganayn dil iyo geeraar leh haddii aanan halgabay dooranayn yaan isaga daayey aanu dambaysiiyo laba tuduc oo gabaygaa ku jira muujinayana inkastuu da'yaraa reer miyina ahaa garaadkii siyaasadeed ee 70 gu ka hor uu faarax xuseen soomaalida dheeraa midii uu markaa ku dhex jiray iyo tan maanta labadaba waxay ahayd xilligii gumaystayaashu ay dalka wada haysteene sababihii uu gabayga isaga daayey ayaa waxaa ka mid a inuu arkay sida shisheeyuhu uu soomaalida u silcinayo sida ay ugu wada adeegayso ee cid maya tiraahda looga la'yahay iyo waxaa lagu faraayo sida aysan uga dhiidhiyeyn dhinaca kalena ma gabay baa u bannaan hadduu indhaha ka qaaday odayadii ummadda madaxda u ahaa oo iyaga iyo maamuladii gumaysigu ay shirkoobeen dabadeedna lacag la siiyey awgeed dadkii shalay boqraday shisheeyaha ka iibsanaya markaas buu yidhi hadduu dooro weynow kufrigu ina dulaynayo meeshuu inoo diro haddaan diidi kari weynay inay diinta nebi baylah tahay yaan isaga daayey ninkii maylax lagu duubay oo caana lagu daabshay dirham beesa lacageed hadduu inagu doonaayo in kambani duqowdeennu tahay yaan isaga daayey dhegaystayaal inkastoo faarax xuseen uu ararta ku sheegay in 16 qodob dartood uu gabayga isaga daayey haddana way la taraatayoo markuu dhammeeyey waxay noqdeen 19 sababood aniguna wakhtiga barnaamijka oo kooban awgeed waxaan idinka maqashiiyey 11 keliya waayo toddobaadka dambe hadduu eebba idmo iyo gabyaa kale oo shaaciyey sababihii uu isaguna gabayga isaga daayey